بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay halka isku keenay markii xigta taariikhdu markay ahayd 24 bishii 12 goor saacad ahayd 12 habeenimo gacan ku dhiigle Nuux Ahmed Ismaaciil oo loo yaqaan Nuux Cadaani wuxuu tagay guri uu leeyahay Mustafa Xasan Kafaadhi waqtigaas guriga ka maqnaa hase yeeshee waxa joogtay marxumadda loo jiray Allah u naxariistay Mustafa Ismaaciil Aadan ina Xabiib Xasan shilata jir ah gabadhaasi ayuu guriga ku garaacay way ka furtay kadib la gacan ku dhiglo markii qolkeedii gashay ayuu faashkii uu sitay wuxuu ku dhuftay laba jeer ka dhuftay qadaadka dhulka ay ku dhacday gabadhaasi isla goobtii ku dhimatay Allah u naxariisto oo ka soo baxay guriga jeliisu ka soo baxay wuxuu tagay guri isagoo uu ilaaliyo oo ku yaala xaafadda Kolchano oo ay leedahay gabadha Carabileey gacan ku dhigluhu wuxuu gabadhaasi ku dilay hinaasi maadaama ay ka dhaxaysay jacayl ka dhaxay labada marxuumada isaga wuxuu teleefankii iga qaban weyday mashquul bay ka dhigtay buuri taasi awgeed ayuu guriga u yimid oo ku garaacay oo faashka qadaadka daba ka dhuftay laba jeer Allah u naxariistay markuu falkaasi dhacay ciidanka booliisku hawlgal aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen waxay tageen goobtii u deganaa gacan ku dhigluhu waxay ka soo saareen faashkii wax ku dilay iyo tooriye kale haystay garankiisii oo dhiigle waxaa keenay xarunta CID-da waxaa lagu sameeyey baaris aad iyo aad u qoto dheer leh markay booliisku baareen faashkii oo dhiigile markay arkeen garankiisii oo dhiigle gacan ku dhigle aad baa loo weydiiyey waxaanu qirtay isla markiiba in uu isagu dilay gabadhaasi isagoo biirkiisa imaankiisa qaba oo aan cid khasbin waxaanu maxkamadda horteeda ka bixiyay qiraal soo qabaartay 68 halka ka qabta si uu la kaca ayuu gabadhaasi dilay Allah u naxariisto gacan ku dhiglaha kiiskiisa waxa loo gudbin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo maxkamadda ee xeelaynta awood u leh qaadista bilaasi bulshada waxaan u sheegaynaa in ay ku hadlaan maaha propaganda inay fidiyaan inaanay wax aan jirin sheegaan maaha waxaan jirin sheegaan ay bari bulshada ku faafiyeen waxyaabo propaganda ah oo ceebeen ah oo ah been aan sireenato lahayn waxa weeye booliiska in laga warsigo intay wax baarayaan laakiin booliiska aan baarista dhammaystirin in ay propaganda iska fidiyaan waxaasoo kale waa dambi waxa loo dul qaadan kara maaha cidii dambe lagu qabtana waxa weeye waa lagu qaadaya waxaana dadweynaha uga digaynaa inay waxyaabaha noocaas oo kale ka digtoonaadaan tan labaad baryahan waxa baraha bulshada ku soo noqnoqonaya page xaraan ah oo aanay ciidanka booliiska lahayn pagekaas oo la soo dhigayo waxyaabo laga iqsoodo oo aanay ciidanka booliiska samaynayn dadweynaha ku qoraya waxaan leenahay war pagekaas waxbaa ku qorina waa been annagana ma khuseeyo shaqo kuma lihin beejka saxda ah ee ciidanka booliisku leeyihiin waxa weeye waa beejka uu ku qoran yahay ciidanka booliiska la ay tigta madow saaran tahay kaasaa sax ah oo ay ciidanka booliisku ku shaqeeyaan ciddii wax aragta ama doonaysa inay wax soo qorto beejkaa ku soo qorto laakiin waxaan dadweynaha reer Somaliland ee aanu jecelnahay ee booliiska sida wanaagsan ula shaqeeya ee booliiska wixii dhacaa u soo sheega waxaan leenahay war ka fogaada beejkaa kale هذه الشيء سوقرية وحين شرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.